wallaahiya oo igu bilaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo waxa igu wallaahiya oo igu bilaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo waxa igu wallaahiya oo igu bilaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo billahi tawfiiq raxiim marka hore waan xabriyeena saddexdii xubnood ee maanta hore la reebay waa qof xil loo magacaabay oo dhammaan intii fadhiday ay gacanta siisay waa si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego curfiga baarlamaanada taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo howlaha socda in sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin 7diinaba la siiya kalsoonida qaranka waxaa hor yaalla hawl culus wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee lahaa ayaa jid bixinaya dadkoo dhan xalay maanta waxay ku seexdaan waxaa jid bixinaya komishankii baa la dhameeyey mas-uuliyaddaas waa idin taalla kolkaa qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhanayay labadiiba idinka hor yeelaan imanka oo idinku soo wareegeen mas-uuliyaddooda marka waxaa idin yeela horta marka hore waxaynu waay aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad dad aan 4 qofna ahaatee hadda wad socdan waa inay hor maxay noo xeera markaa horta xeer samaysta laakiin markay qariya qari tagto haddii reference ba la waayo way safgaran waayaan taa ka digtoonaada oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad qabo banaanka jooga isla heshaan idinka idin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka u dana samaysta 2 hawlihiinni waa gudagelaysa waxa u horeeya laydinka sugayaa oo anaan ka sugayaa imika doorashada madaxweynaha goor baa la gelaya goormaa diyaar garooba eragga kala diyaar garoobe qaranku way taas isku haystaa dusheena taala hawsha hadda ka gutaan waxaa soo haraysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo wakti badan bay naga lumisaa doorashaduna qiimo badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin dimuqraadiyadduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxa dagaal walba naga kulan waa mar olo lagu jiro oo dadku culoobayo marka lasoo baxana dadkii baa la heshiisiinaya iyadoo intii hore laga buuso la buuqayo oo dhaqaale yaraa ee ay taageen yar wax ku qabsan lahayn taaba inaga galay ay haddana tii kale soo gelaysa markaasaynu isku arbushmayna cid walba way ku dee buuq badanta laakiin dowladaha hore dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladooda afaqsada way barteen odaga arkaya ingiriiska 3 sano 4 sano mid baa la bedelaayo prime ministerka oo way yaqaanaan sitan dhaqaalena way u hayaan dadkuna way tababaran inagu dhaqaalo wahan doorashooyinku way hawl badan aad bay dalka dhiigbaxa weyn waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku culuunaa doorashada kambeynka yar si fool xum inagu culuuna xataa waqti aan ku neefsano oo iyadoo la nastay tii kala galamahayo saasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorasho hore tallaabo wanaagsan bay wixii hadhana waa la isku geegeyn karaa laakiin iminka waxaan ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqan jira 2 doorasho iyo duniya loo qaadaysa mid waa tii xisbiyada markaas 3 xisbi soo saartay madaxweynaha la dooranaya
ururada cararaya madaxweyne doonaya ma dhici karta inaa ururado urura sameeya madaxweyne gudoomiye dib u sugaa contextka sharciga maaha diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa marka waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka o dhan socoto shaqaalo aan u samayno gobollada la geeyo ay hoos timaado oo si joogta u maamushaa iminka maxaa dhaca commissionka markay doorasha cadiis daba iska nastaa waa farida 2-3 years baan hawl badan qaban commissionka marka waxay ahayd inaad samaysaan official ilaa districtida taga oo shaqaalihiina oo daatadiina ururiya oo protective security daatadiina ay tahay dee protective dabeetana aynu soo galo doorashada idinkoo diyaara laakiin mar qura loo diiwaangelinta ha galo waa 8 milyan dollar 8 milyan baa ku baxaa 7 milyan haddana doorashadii baa loo hala galo waa 7 milyan oo kale 14 milyan waa security-ga iyo baybarka waraaqa laga shaqeeyo intaa idinku baahantihiin intaa in lagu kala ku baxaysa oo security ka badan dareero weyn oo waxba hayn abaara iyo qas iyo ku jira marka waxaa idinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeyn idinkoo waay arag u lahayn badan cilmigoo tan meel badan inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorasho dalka laynoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeyaa positive-kooda loo qaata markaase waxaanoo buuq inaga yaraanaya haddii kale intii doorashanu galo waa iskooda mid uun marka la galayo waa dagaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabaji waaba routine bini aadmuna dee wuxuu qaataa waay arag oo ka baxa ay hob inaad taa xalisaan sida aynu heshaan fishanka dheer yeelataan anigu wada la shaqeyna gacan buuxda naga helaysa hawlaha wixii fudeynaya waxayna intaa waayeen intaa ay wada shaqeyn wanaagsan dhammaantii soo dhawaada dee idinku waa la tugaya imika qaranku idinku tugaya kolkaasaa expectation badan baa la kala siinaya iyadoo taagtii looga allah idiin sahlo marka anigu se waan ogahay waa idinla garab gelaya waa mahadsantihi